سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته. ميكانيزم كمان reaction كان يستخدم ميكانيزم بولي. This reaction ما كان undergoes two steps given below. ميكانيزم محن كل شيء شغله reaction كوسيدا ودعايو واحد reaction كولا أو reaction كل عايو وكان أمرك ميكانيزم كيو هذا كشرحه يا لو step مرة step 1 أو لو يغني rate dependent step أما reaction dependent step والreaction كقريب تهره وقامين يصير reaction سود عايو step كلوادنا كانوا كتمية marka stepka hore ayaa u baahan si fiican in isla faahno waxa isla falgalay waa bromine molecule iyo ethene buu ahaa sidaan ku soo qaaday in reaction keeni hadda aan soo dhaafno maxaa dhacay marka bondiga kani awal wuxuu ahaa non polar oo aan naqaan laba atom isku mid ah haduu bondigu ka dhaxayo waa non polar waa equal sharing laakiin marka allaala goortu u soo dhawaado halakan double bondka wuxuu isu bedelayaa polarized falaata maxay ku sheegaysaa فلاتا waxay ku sheegtaa labada electron ba xagee aadaya labada electron la wadaagay oo awal maxaa la rabay inuu noqdo homolytic fission oo markuu bondigu jabo in bromine tan xabadeeda qaato tan xabadeeda qaatay laakiin ma dhacayso bondigu isagoo non polar ah ayuu wuxuu u jabayaa heterolytic fission ba ku dhacay oo waxa dhacaysa labada electron xagee u soo durkayaan waayo waxay ka caadayaan halakan electronada badan ee ku jira double bond high electron density barrier electronada halan ku jira ayaa waxa repulsion ku sameeyaan electronada halan ku yaalay sidaa dad waxay u push gareynayaan xagga falaarta fiiri hoos waxay pushun ku sameeyaan xagga hoose taasoo cadeynaysa bondiga awal ahaa non polarka inuu isu bedelo polar oo labada electron dhexda yaalay inay xagga u soo durkaan hoos soo aadaan kadibna bondigu uu jabayaa marka uu jabo homolytic fission ku dhici maayo oo waxa la rabay inuu homolytic fission uu ku dhaco oo kan uu xabadiisa qaato kana xabadiisa qaato laakiin maadaama uu noqdo polarized oo polar uu isu bedelay labada electron falaartana ku shiisa qaloocan ma tahay xagii soo aysa labada electron waxa isku qaadanaya bromine tan hoose kanna waxba qaadan mayso sida dad bromine tan maxay isku qaadatay labada electron la wadaagay oo ah keedi iyo kii bromine ta kale ay isku qaadatay marka halkan maxaa ka soo baxaya halkan ka soo bixi maaya atoms ee waxa ka soo baxaya laba ion maadaama kan electron keedi iyo mid kale oo bromine ta kale ay lahayd isku qaadatay wuxuu noqonayaa charge-geeda negative ila hore u soo baranay atomku hadii uu qaato electron isagu uu san lahayn charge-giisu negative uu noqdaa kan maadaama ay halka electron laga qaaday oo outer shell-ka ugu jiray oo labada electron bay xagga isu aadeen iyadana charge-geeda wuxuu noqon doonaa positive ka positive ka marka waxa loo yaqaanaa electrophile electrophile ayaa yiraahdaa gadaal baan ku arkaynaa sharaxaadiis kadibna markuu positive noqdo waxa jawaya pi bond marka uu jawo kan muxuu labada electron oo pi bond xaqiisa wada aadaya dhinac wada aadaya sidoo kale labada electron maxaa la rabay inuu kana xabadiisa qaato ma dhacayso sidoo kale sidoo waxa dhacaysa labada electron oo pi bond carbon kana isku wada qaadanaya markuu isku wada qaato maxaa dhacaysa marka labada electron xagga isu raacay waxay qabsanayaan bromine ta halkan aan positive kan soo sheegnay bromine positive ka xagga tagaysa waxay qabsan doontaa ka bond cusub soo ismaya waayo bromine ta maadaama positive tahay electron ay share geysato ma haysto sida daadii labada electron xagga ku jira xagga isu raacaya maxay halka ka sameeyeen marka bond saddexaad oo u dhaxeeya carbonka bidixda ah iyo bromine positive ka ah kan negative ka marka waa kana marka kan muxuu noqday positive uu noqday laba dhac isku mid hada xagga tira ama hada kan sawirka soo inoo sheegayo kana muxuu labada electron xagga soo raacay xagga soo aaday markii labada electron pi bond-ka xagga soo wada aaday bidixda atomka midigta carbonka midigta muxuu qabsaday bromine positive ka ah oo iyadu waxa electron aan haysan ayaa waxay qabsanaysaa labada electron xagga aaday bond cusub ay sameeyaan carbonka kama ka oo bidixda ah isagoo muxuu noqonayaa charge-giisu positive why because of labada electron ba xagga soo aadeen isaga maxaa dhacay marka kan positive ka iyo bromine xagga ahayd oo negative ka iyadna ahayd ayaa hadana maxay sameeyeen koorta bondiga labaad waa kana isla fahmin sheekada maxaan ku yiri waxa jabaya electron waxa bondigana jabaya bondiga kan uma jabayo waan ku yiri homolytic fission uma jabayo wuxuu u jabayaa heterolytic fission why
because of mar alla markuu bromiintu ay u soo dhawaato double bondka waxay noqonaysaa polarized laakiin markii hore maxay ahayd non polar markay polarized ay noqoto labadii electron oo la wadaagay waxay hoos bay aadayaan sida baraartan ay ku sheegayso waxa qaadanaya marka bromiintana qaadanayso bromiinta kalena marka waxba qaadanayso kadib markuu bondigu jabo tan waxay noqonaysaa jaardigeedu positive tan sare midda hoosena jaardigeedu wuxuu noqonayaa negative waayo maxay qaadatay electronkeedii iyo tii bromiinta kale halka maxaa ka soo baxay marka laba ion positive ion iyo negative ion kadib haddana maxaa jabaya isla markaana pi bondki haddana sidoo kale pi bondka ama pi electrons bariyada pi electronski ku jiray pi bondka laba electron bay ahaayeen oo labada carbon ba kala lahaa sidoo kale waxa dhacaysa in dhan isu wada raacaan iyadana waxa wada qaatay sidii inaga hadda sawirku inoo sheegayo tan midigta wasla meesha labada ka dunta ku muujin kara kan midigta haddii labada electron isu wada raaceen muxuu noqonayaa marka isagu negative oo buqaanaya wuxuu qabsan doonaa marka bromiintan iyo waxa isqabsanaya carbonkaas oo muxuu isku qaatay labada electron oo labada carbon ay lahaayeen carbonki marka midigta carbonka bidixda ah isaga waxa ma haysto waayo electronka xagga isu wada raaceen labada electron charge-giis marka muxuu noqonayaa positive waxa loo yaqaanaa carbocation cation maxaan ku naqaanay oo positive ion maxaa loo hore maxaa ka raacaysa carbocation ayaa yiraahdaa waa carbon charge-giisu positive yahay carbocationkii muxuu qabsanayaa marka bromiinti kale oo negative ka ahayd iyada oo charge-geeda labada electron isku haystay waa kuwa kale hal beer bay qaadatay labada electron maxay yihiin labada dhibcood waxay ku sheegayaan labada electron ee awal isku qaadatay way marka charge-geedu waa negative waxay qabsan doontaa marka carbonkii positive ka ahaa halka maxaa ka samaysmaya marka maxaa ka samaysmaya bondi kale oo ah carbon bromine marka stepki koowaad wuxuu ahaa pi bondkii baa jabay bondigaasna wuu jabay kadib maxaa dhacay labadii electron oo pi-ga ahaa xagga isu wada raacay midigta brominti positive iskaasay qabsatay that is the stepka koowaad stepka labaad maxaa weeye carbonki positive-ka noqday oo isagu electronkiisa laga qaaday iyo brominti negative-ka ahayd baa haddana isqabsanaya maxay samaynayaan maxay bondi labaad oo ah carbon bromine marka reactionka waa labada step marka maxaa la yiraahdaa marka stepkani maadaama uu ku xiran yahay brominta positive-ka inay soo baxdo maxaa loo yaqaanaa marka electrophilic addition barrier waayo kan waa electrophile-ku waa shayga positive-ka shay kasta oo charge-giisu positive yahay ama electronku ku yar yahay waxa loo yaqaanaa electrophile marka electrophile-kii ayaa waxa qabsanaya carbonkan midigta marka electrophile baa soo weeraray way marka oo xagga wuxuu sabay inuu pi bond ku jabo sida daraadeed maxaa la hayaa electrophilic addition barrier waa addition laakiin uu ku socdo electrophile this reaction will also involve sidoo kale sida reaction kasta aan ku naqaanay bond breaking iyo bond formation ayuu leeyahay the bond between bromine atoms bondiga u dhaxeeya bromine atoms-ka is non-polar waa non-polar maadaama laba atom oo isku mid uu ka dhaxeeyo oo laba atom oo isku mid haddii uu ka dhaxeeyo bromintu waa 35 buu ahaa electronegativity waxaa leeyahay 3.5 laga jiray 3.5 waxaa kusoo baxay 0 marka bondigaas waa non-polar but as it gets closer to the high electron density double bond marka bond baa ka maqan markay as it gets closer markay u soo dhawaato to the high electron density double bond of the 18 markay u soo dhawaato maxaa ku dhacaya it is polarized wuxuu noqonayaa wuu polar garoobaya polar buu isu bedelayaa awal meeshuu ka ahaa polarized because sababtoo maxay the bonding pairkii labada ka dhaxeeyey ay wadaageen of electrons between bromine atoms oo iyagu dhaxeeyey bromine atomsku u dhaxeeyey repelled wuxuu ka cararayaa from high electron density double bond ka cararaya maadaama marka bonding pairkii uu hoos u degay taas waxay keenaysaa maxay in bondigii awal ahaa non polarka uu isu bedelo maxay polarized uu noqdo polar good so sidaas daraadeed bond breaks marka bondigaas muxuu u jawayaa heterolytically uma jawayo homolytically waataan soo marnay homolytic fission maxaa la yidhahdaa waa markuu bondigu jabo laakiin atomiska ee si isku mid ah ee electronadu u kala qaataan laakiin hadda ma dhacayso labada electron ba labada bromine mid ka mid ah isku qaadatay
ولا ما كلا عشان ده وكان لو يدار homolytic fission كان محله يقانا heterolytic because so the bond breaks with الجوايا heterolytically which means تاسو معناه دي both electrons or bonding pair لوضعها move وهي area to one or bromine atoms لوضع bromine مثل ما قاعدين سلوضع electron دي bonding pair كأها أو لو وداعي أو bond دي كوجري markii bondigu jabo si isla eg loo kala qaadan maayo waa atom kasta kiisi la noqon maayahe labada bromine mid kamid ah ayaa labadii electron ba isku qaadanaysa fahantaan this makes marka maxay sameeyaysaa marka maadaama bondigii uu jabay labadii bromine mid kamid ah ay labadii electron ba isku qaadatay marka maxaa soo baxaya this makes positive and negative ions laba ion oo midna yahay positive midna negative yahay instead of halkay ka soo bixi lahaayeen free radicals oo maxaan ku soo aragnay keeni hore markay dhiganaynay substitution-ka waxaan ku soo aragnay labada bond kii jabayay oo chlorine ta waxaan ku soo aragnay markii bondigu jabo in atom kasta uu electronkiisa dib ula noqonayo marka maxaa soo baxay free radicals ba soo baxay free radicals maxay yihiin waa atoms weeyo ion ma واتمس لكن هي لين الكترون امبيرد لكن واتمس عادي لكن هل كان ايونها سو بخاي ايونها maxaa sameeynaya waxa sameeynaya waa heterolytic fission kuna muxuu yahay waa markii bondigu jabo laakiin labadii electron ba ama bonding pairku uu aado mid kamid ah labada atom ay isku qaadato tan kale marka waxay noqonaysaa waxa ma haysto waa electronkeedu waa laga qaatay tan laga qaatay electron maxay noqonaysaa positive tan labada electrons ku qaadan waxay noqonaysaa negative ion bay noqonaysaa halka marka meeshii laga sugayay free radicals waxa soo baxaya laba ion oo midna yahay positive midna yahay negative sida noocaasa bondiga markuu sidaa u jabo waxa loo yaqaanaa heterolytic fission the positive ion marka maxaa loo yaqaanaa electrophile ayaa la yiraahdaa ama electron lover electron jacayle file waa love bay la macaan tahay electron buu u baahan yahay electron lover barrier electrophile or positive ion why so what positive electron ba ka maqan electron buu u baahan yahay and negative ion ku soo maxaa weeye waa nucleophile barrier nucleus lover so nucleus buu jecel yahay oo nucleophile maxaa laga wadaa nucleus iyo file oo macnaheedu yahay lover nucleus maxaa ku jira waa proton marka isoo maadaama negative yahay wuxuu u baahan yahay positive no proton de sida daadin marka maadaama uu protonka isagu u baahan yahay protonkana muxuu ku jiraa nucleus-ta waa charge waa walaxda kaliya ee charge-ga leh ee nucleus-ta ku jira marka leeyahay nucleophile oo protophile baa laga wadaa protonophile ama proton lover bay macnaheedu yahay waa nucleus maxay u taagan tahay proton positive charge baa laga wadaa marka kan negative ka magaciisa waxa loo yaqaanaa nucleophile kan positive kana waxa loo yaqaanaa electrophile shay kasta marka oo charge-giisu positive yahay ama cation ah waxa loo yaqaanaa electrophile oo macnaheedu yahay electron lover electron buu jecel yahay electron buu raadinaya electron baa ka maqan negative ion-kana waxaa loo yaqaanaa nucleophile oo macnaheedu yahay nucleus lover isaguna positive charge buu raadinaya ama proton buu raadinaya waayo electronka ku badan negative-ka kanna maxaa ku badan protonka muxuu raadinaya electron buu raadinaya marka maxaa loo yaqaanaa electrophile kanna waa negative ion electronka ku badan muxuu raadinayaa nucleus ama proton buu raadinaya marka maxaa loo yaqaanaa nucleophile good kaasi waa marka shay kasto electronku ku yar yahay ama positive ion ha noqdo ama molecule caadi ha noqdo waxa la dhahayaa electrophile shay kasto oo electronku ku badan yahay ama ha noqdo negative ion ama ha noqdo mid aan ion ba ahayn oo molecule caadi laakiin electron rich ku ah electron rich hadduu yahayna wuxuu noqonayaa nucleophile buu noqonayaa electronka ku badan kana hadduu yahay electron deficient oo electron ku yar yahay ama positive ion uu yahay isagana electrophile buu noqonayaa marka khasab maaha electrophile uu charge kaliya yahay waxa dhici karta electrophile inuu yahay shay aan positive charge ahayn oo ah molecule caadi ah oo isagu electron u baahan sida hadeer aan ku soo qaadanay BF3 boron trifluoride ama boron trichloride BF3 oo kale borontu dhexda ku jirta 3 bay share garaysay 6 bay heshay sida daadeed laba ka maqan marka molecule-kaas kale wuxuu noqonayaa electrophile waa electronka ku yar sidoo kale ammonia waxay leedahay iyo biyaha oo kale waterka oo kale iyaguna wuxuu noqonayaa waayo waxa ku badan
lone pairs bay leeyihiin hadduu moleculeku lone pair leeyahay waa electron rich baa la yihahdaa isaguna nucleophile buu noqonaya marka negative ion hadduu yahayna waa electrophile hadduu molecule caadiya yahay laakiin electron rich ah sida ammoniada iyo waterka oo kale iyo isaguna wuxuu noqonayaa nucleophile waa electronkii buu qani ku yahay midna electronka ku yar waa positive ion ama waa electron deficiency molecule deficiency waa yaraan marka positive ion waxa loo yaqaanaa electrophile oo macnaheedu yahay electron lover electron buu baahan yahay negative ion waxa loo yaqaanaa nucleophile oo macnaheedu yahay nucleus lover in the step 1 book marka stepka koowaad sidaan ku soo aragnay positive bromine ions attaches markii bondigu jabo positive bromine ion maxay ku dhigaysaa to the one of the carbon double bond labada carbon oo double bond ka dhaxay mid kamid ay qabsanaysaa to form maxaa soo baxaya carbon bromine bond maxaa soo ismaaya bondi u dhaxaya carbon iyo bromine in the step 2 stepka labaadna bromine negative ka ahayd bromide negative ion IDE way qaadanaysaa markay negative ka tahay tan laakiin bromine baa la yidhi waayo positive ion ka badanaa magaca lama bedelo negative ka laakiin IDE way qaataan bromide negative ion attaches wuxuu ku dhagayaa isagana on the carbocation maxaan kusoo sheegnay haddaaye markaan sharaxaynay carbocation kaasaa la yidhahdaa waa carbon muxuu wataa positive charge carbonka positive charge-ga wato ayaa loo yaqaanaa carbocation step 2ga muxuu ku yidhi marka bromide negative ion attaches muxuu qabsanayaa isaguna carbocationka waa carbonka charge-giis positive cation maxaa weeye positive way marka carbocationka sidoo kale maxaan ugu yeeri karaa maadaama charge-giisu positive yahay waxaan dhihi karnaa electrophile isagana waayo electron buu baahan carbocationka uu qabsanayaa bromine maxay noqonaysaa negative ma electrophile bay noqonaysaa waayo waa negative carbocationka wuxuu noqonayaa electrophile tanna waa nucleophile good marka carbocationkii wuxuu qabsan doonaa carbocationkii oo positive ka ahaa iyo bromine negative ka ba isku dhigi doonaa maxaa samaysmaya new carbon bromine bond oo kii hore ma ahayn mid labaad baa samaysmaya okay the first step marka stepka koowaad oo ah midda bond isku jabayaan oo positive ions samaysmayaan double bond ku jabayo stepka koowaad the first step determines waa midda go'aaminaysa the reaction so the mechanism of the reaction muxuu noqonayaa electrophilic addition oo bromine negative positive ka maadaama iyadoo electrophile ay tahay iyadoo ay reactionka meesha ka bilowma ay tahay iyadoo maxaa loo baxshay markaa electrophilic addition marka electrophilic addition baa mechanismka oo reactionka muxuu ku socdaa electrophile ayuu ku socdaa electrophile oo markii ugu horeysay bromine positive ka maxay qabsatay labadii carbon midka labada electron isku qaatay ay qabsatay marka iyadu maxay noqonaysaa electron bay u baahan tahay positive way waa electrophile carbocation kuna sidoo kale muxuu qabsanayaa t negative way waayo isagu muxuu u baahan yahay isagu waa electrophile way marka labada step ba meesha waxa uu ku socdaa waa electrophile marka maxaa loo baxshay marka mechanismkaas maxaa loo yaqaanaa electrophilic addition ayaa la yiraahdaa electrophilic addition ayaa ugu yeeranaa halkan marka video ayaan halkan fiirini doonaa xoogaa bal inuu fududeeyo fahamka ardayda bal inuu fududeeyo ayaynu eegaynaa oo wuxuu sharaxayaa intii hadda aan soo marnay oo ahayd electrophilic additionkii electrophilic addition waa simple mechanism simple oo muxuu dhaxayaa marka reactionku waa bromine iyo ethene waa intaa soo marnay ethene ama ethylene iyo bromine buu ka dhaxayaa reactionku mechanismkan muxuu yahay la sharaxayo waa electrophilic addition waa addition ku socda electrophile ku socda electrophile-na maxaa la yihahdaa waa shayga isagu electronka u baahan bromine isagu maxay tahay bromine molecule maxaa waa non polar molecule waa non polar waayo laba atom oo isku mid ah ka dhaxaya molecule ama bondi ka dhaxaya marka bondiga u dhaxaya labada bromine waa non polar waayo waa laba atom oo isku mid ah oo ah same electronegativity good waa kana ma dhexdu yaala ma tahay labada electron labada circle bartamaha hadduu yaala maxay naqaan jirnay labada dhinac maxaa ka haysa laba force oo isku mid ah ayaa ka jiidanaya marka bartanka yahay waa equal sharing
halka marka kama jiro wax polarity la yiraahdo molecule-ka marka waa non polar ayuu noqonaya laakiin maxaa ku dhici doona marka xagga uu la kulmo double bond-ka waxaa ku dhici doona inuu noqdo polarized sidaan hadda soo sheegnay oo polarity ayuu yeelanayaa markiisii hore laakiin ma lahayn 18 waatana 18 waxay leedahay double bond baa ku jira carbon kastana laba hydrogen buu haystaa maadaama iyagu laba ay share gareeyeen mid kasta carbon kasta laba hydrogen buu qabsanay marka 18 wata kana waa bromine oo soo sheegnay isagana marka double bond kaasaa jabaya waliba bi bond sida hadda loo calaamadiyaa ujeeda intaa la calaamadinayo waa intii double bond-ka oo meesha uu ka dhacayo reaction-ku wey intaa calaamadsan waa double bond waa high electron density way qaybta electron-ku ku badan yahay double bond-ka 4 electron waa kana markii model ahaan halkaa fiiri markii ku badan yahay aan ka dhigno modeliskii double bond baa halkaa ku jira marka saasuu marka u samaysan yahay muxuu yahay marka halkan waa high electron density oo electron-ka ku badan density waa cufnaan يعني هذا maxaa ku jira 4 electron baa ku jira macni laba bond way labada bond mid kasta wuxuu leeyahay maxaa weeye laba electron buu ka samaysan yahay bi bond-ka iyo sigma bond-ka marka waxa loo yaqaanaa high electron density electron-ka ku badan way meeshii waa kana bi bond-ka kor iyo hoos buu iska qabsadaa waa markii parallel isu qabsanayaan parallel wataan soo sheegay ka dhexda ku yaala muxuu waa sigma bond so waa axial dhexdu isagu yaala waka laakiin kan labada dhinac baa laga dhigay maanta guduuda kan iyo buluuga halka soo u taagan yihiin waa bi bond-ki baa laga wadaa oo isagu si parallel ah ayay isu qabsanayaan b orbitals good marka bi bond-kaas waa mid ka jabaya marka bi bond-ku waa mid ka jabaya waa kana halkan maxaa la keenay marka bond-diga halkan ku soo arkayno oo ahaa bromine bond maxaa dhici doona markii uu soo dhawaado xagga uu yimaado maxaa ku dhici doona marka labadan electron baladu marka fiiriye marka hoos bay aadayaan hoos bay soo durkayaan hadda waa non polar way molecule laakiin maxaa ku dhici doona polar bay soo bedelaya hoos bay soo durkayaan halkaas si fiican loo socdo marka naarika hoos buu soo aaday way soo durkayaan way soo socdaan naarika halkaas ay tageen marka awal dhexdu yaala ma ayta bondigu maxay noqdeen marka polarized xagga hoose ayay soo aadeen marka dhinaca hadii u soo bataan kan muxuu noqonayaa sigma negative kana muxuu noqonayaa sigma positive oo waxay noqonayaan partial charge bay yeelanayaan marka oo bondigii awal ahaa non polar-ka oo bartamuhu uu yaalay labada electron bartankay yaaleen waa kana maxay noqdeen marka hoos u soo durkay oo kan xagiisa u soo dhawaaday marka saas muxuu ku noqonayaa marka inuu noqdo polarized ayuu noqonayaa marka xagga u soo dhawaadeen kan muxuu noqonayaa marka maadaama dhanka electron-ku isaga u bateen sigma negative partial charge kana muxuu noqon doonaa sigma positive partial charge hasa ku qoraynaa marka labada dhinac waan ku qoraynaa sigma positive iyo sigma negative si aan u muujino bondigaas inuu yahay maxay positive way kan sare kana hoosena maxaa weeye sigma positive waa kan sare kan hoosena waa sigma negative waa partial charge macnaheedu waa maxay bondiga muxuu isu bedelay meeshuu ka ahaa awal non polar oo marka sigma negative ma kala lahayn labada waxay ahayn charge ma jirin halkan polarity kama jirin laakiin markan wuxuu yeeshay polar buu noqday polarity buu yeeshay waayo labada electron oo bartanka yaalay oo la wadaagay markan xaggii u soo badan yihiin because of repulsion of high electron density double bond good maxaa dhacaya marka stepkii koowaad baa dhacaya the first step ayaa halkaa ka dhacaya slow step baa layihahdaa waa stepka wuu gaabinaya maaha fast laakiin waa midka go-aaminaya reaction-ka haddana slow step weeye waa waqti buu qaataa laakiin waa midka rate determinant baa layihahdaa waa midka go-aaminaya reaction-ku suu dhacayo halkaa marka maxaa dhacaya double bond-ki waa jabay laakiin double bond-ki marka uu jabo labadii electron maxay soo aadayaan xagga oo labadii electron-ba labada carbon mid ka mid ayaa qabsanaya kan midigta ama kan mid weey kadibna maxay qabsanayaan midkan positive-ka labada electron oo bi bond marka uu jabo carbonadii mid ka mid ayaa labada electron isku qaanaya kadib muxuu qabsanayaa midkan positive-ka ah ayaa loo yaqaanaa electrophile marka
this is electrophile midka positive ka maxay tahay kana waa nucleophile buu noqonayaa laakiin midkaana wuxuu yahay positive ka oo midka qabsan doona hadhow labada kale midka mid isaga markii hore ku horeynaya qabsashada ka ku horeynaya marka maxaa loo yaqaan marka maxay electrophile bal xagana marka ku qoraynaa electrophile si oo aragto ayuu ka soo baxaysaa halkan good halkan sidoo kale bondigan uu jabaya isna markuu bondigu jabo falaartan maxay ku jirtaa qaloocan waxa loo yaqaan Carly arrow falaartan Carly waa C U R L Y Carly arrow gaas xoodan waxa lagu muujinayaa waxa ku cadaysan labada electron ba kana isku qaadanayo bondiga marka uu jabo labada electron maadaama awalba kan xagiisa u soo dhawaadeen oo polar noqdeen sigma negative yahay sigma negative kaas waa partial charge marka dib wuxuu isu bedelayaa full charge oo negative caadi uu noqonayaa labada electron marka uu qaato bondigan uu jabay kana muxuu ahaa positive partial charge muxuu isu bedelayaa marka isaguna full positive charge ayuu noqonayaa isaguna good falaaratan marka arkaysa labada falaar socodka electronada ay ku sheegayaan electronka sidii u soconayaan ayay ku sheegayaan falaaruhu good step kaasi waa mid ka go'aaminaya sida reaction ku u dhacayo waatana muxuu kugu qoray halkan bromine positive oo ah electrophile wataan hore ku soo sheegay electrophile hadaa maqasho waa shay jarjigiisu yahay positive ama molecule electronku ku yar yahay ayaa loo yaqaan electro oo electron ah iyo file oo macnaheedu yahay loving electronku jecel yahay marka midkan positive ka way midka qabsanaya labada carbon mid kamid ah marka bondigu jawaab maxaa dhacaya marka labada carbon mid kamid ah labada electron isku qaatay bromine ta positive ka electrophile ka ah ayuu qabsanaya marka electrophilic attack ayaa sameynaya electrophile kan ayaa attack sameynaya oo wuxuu qabsanaya labada carbon mid kamid ah isagoo labada electron dhinac isu raacayaan electrophilic attack bariga waxa weerarka sameynaya waa kan positive ka oo isagoo electron u baahan maadaama electronkiisa laga qaatay waa sababta loogu baahshay marka electrophilic addition waa kana marka bondiga fiir waxa ku dhacay intuu sii socdo bondigaas uu jabaya by bondki waa ku daayay single bond uu isu bedelay bondiga marka halkan bondiga soo baxay uu qabsanaya marka bromine T positive ka ay xagga imaan doonto bondigaas waa jabay isaguna anta labadii bond u dhaxayay labada bond uu jabay labadii bromine T positive ka korka xagga aaday maxaa soo haray T negative ka ay waatan oo labada electron maxay ku sheegaysaa labadii carbon kan dhinacana ayaa wuxuu isku qaatay labadii electron muxuu qabsaday bromine T positive ka ahay wuxuu sameeyay maxay bondiga marka halkan marka fiiri marka bondi baa ka samaysmay marka oo ah carbonki labada carbonki bidixda ahaa ayaa wuxuu isku qaatay niri labada electron ee double bondka ku jiray ama bi bondka markuu isku qaatay marka muxuu qabsanaya electrophile ki ee ahaa positive markii electrophile ki positive ka uu qabsado waayo bromine positive ka waxay share garayso ma haysato waayo positive charge way charge-geedu electronkeedu waa laga qaaday laakiin electronki labada electron oo bi bondka ayaa waxa qaatay carbonkan bidixda ah saas marka muxuu ku sameeyay marka bond cusub oo ah bromine ayuu sameeyay carbonki kale marka isagu positive ku noqonaya charge-giisu waa kana sababtu waxa weeye labadii electron oo ka dhaxeeyay carbonka bidixda isku qaatay suu u sameeyo bondigan u dhaxeeyay isaga iyo bromine sida daadii isaga electronku waa laga qaaday marka isaga charge-giisu muxuu noqonayaa positive maxaa loo yaqaan marka shayga noocaas ah molecule-ka hadduu carbon ku jiro uu charge-giisu yahay positive waxa loo yaqaan carbocation waxa loo yaqaan maxay carbocation ayaa la yiraahdaa kan marka maxay ugu yeeraan carbocation intermediate ko carbocation waa molecule oo carbon ku jiro oo charge positive wata marka maxaa loo yaqaanaa magaciisa carbocation intermediate maxaa laga wadaa intaan productiga soo bixin ayuu isagoo horta samaysmaya oo dhexda weey intaan marka productiga soo isman waxa horta samaysmaya carbocation muxuu ka samaysmaya markuu dhowr bonki jabo
labadii electron oo dhowr oo pi bondka ku jiray oo loo yaqaan pi electronska waxa isku qaadanaya labada carbon mid kamid ah kana isku qaatay suu u qabsado brominti positive ka ay suu u qabsado sida dadii carbonki midigta ahaa electronkiisi waa laga qaaday waa waxa labada electron waxa isku qaatay carbon kana isku qaatay saas muxuu ku noqon markii soo jaardigiisu positive bariyada marka intaan productiga soo bixin maxaa soo ismaya carbocation ayaa soo ismaya waa sababta loo yiri marka carbocation intermediate waa intaan productiga saxda ah oo soo isman ayuu isagoo horta soo ismaya maxaa dhacay marka kan jaardigiisu muxuu yahay markii isaguna bromintan laba electron bay tasmaa labada dhibcood maxay ku sheegayaan labadaas circle waxay ku sheegayaan electronadii ay qaadatay markeeda hore oo markii bondigi marka jaardigeedu muxuu yahay marka iyaduna waa negative kadib maxay isqabsanayaan marka carbocation kan oo ah electrophile oo electron u baahan iyo bromide negative ka ah oo isaguna ah nucleophile kan wuxuu noqonayaa nucleophile buu noqonayaa waa negative kan muxuu noqonayaa waxa loo yaqaan carbocation muxuu noqonayaa isagu electrophile sababtu waa maxay isagu electron buu u baahan yahay kan electron buu haystaa mid uu leeyahay iyo mid uusan lahayn waa sababta negative ka lagu qoray labadaas marka isqabsanaya marka saddexaad carbonka positive-ka iyo waxa isqabsan doona stepkii ugu dambeeyay oo ka saas isu qabsanayaan buu ku leeyahay marka model ahaan lagu sameeyo kubadihii yarka waa kan labadii brominta carbonka mid buu qabsaday kana mid buu qabsaday kalarka guduudka ama brown red-ka wax lagu yaqaan brominta model ahaan iyada la siiyaa madowguna waa carbonka cadaankana waa hydrogenada marka fast stepki fastiga waayo labadaasna kana electron buu u baahan yahay waa laba charge isla falgaya marka laba shay oo charge leh laba shay oo charge midna waa positive charge midna negative charge positive charge iyo negative charge maxay isku qabsanayaan si degdeg ah very fast waa fast step way halkan marka waa kana waxay noqotay marka brominti negative ka ahayd iyo waxa isqabsan doona positive oo ah carbocationki reaction ka marka step kan waa very fast step why laba shay oo charge jaajida ayaa isla falgalaya midna positive iyo midna negative yahay marka isla falgalaya waa very fast marka ay si dhaqso ah isu soo jiidanaya marka stepkaasi waa stepka ugu dambeeya stepkii labaad buu noqonayaa oo isku qabsanayaan marka iyagii waxa soo bixi doona marka bondi kale ayaa ka samaysmaya carbocationka positive-ka iyo brominta negative-ka waa kana stepkii ugu dambeeyay weeye bondi kale ayaa halkaa ka samaysmaya waa kana marka brominti labaad ayaa carbonka midigta qabsatay kan muxuu markii soo carbocation waa kana negative waa labadii marka waxay sameeyeen bondi labaad oo ah carbon bromine mid kale ah ay sameeyeen halka marka addition reaction baa ka dhacay oo brominti waxay la falgashay ethanol addition kan waxa lagu yaqaanaa one product just one product laakiin substitution ku wuxuu kaga duwanaa substitution waxa soo qaadanay markii ethane ay la falgashay baasha la yiraahdo markii la falgalaysay oo lagu daraayay methane lagu daray chlorine waxay noo soo baxay in chloromethane iyo hydrogen kale laba product soo baxay hada substitution kala socotay weeye oo dib ugu noqdo kan laakiin maxaa soo baxay hal product waxa isku soo labadii reactant oo ah ethene iyo bromine molecule marka isla falgeen bondigaas waa jabay oo pi bond ka ahaa kan bondigana wuu jabay laakiin jabida ay uu jabay labadii electron falaata sida ku sheegaysa waxa isku qaatay bromintan kana maxay noqotay positive kana waxay noqotay negative marka bondigana wuu jabay oo muxuu u jabay hydrolytic fission baa ku dhacay kana wuu jabay oo labadii electron waxa isku qaatay labada carbon kan bidixda waa labada electron isku qaatay kadibna muxuu qabsaday carbonka bidixda wuxuu qabsaday brominti positive ka ahayd oo ah electrophile ka ahayd kadibna kan muxuu noqday carbonkii bidixda ahaa wuxuu noqday positive sababtu waa maxay waayo waxa ka maqan electron baa ka maqan isna muxuu qabsan doonaa brominti kale oo negative ka ahayd maxay sameeyeen iyaguna bondi kale ayay sameeyeen oo ah carbon bromine marka additionkii maxaa lagu yaqaanaa bromine iyo waxa isqabsay ethene hal product oo soo baxay laakiin reactantuga laba shay buu ah ethene iyo bromine buu ah maxaa soo baxay laakiin hal product oo loo yaqaano dichloroethane dibromoethane ayay noqonaysaa waa hal product
magaca hoos buu kusoo qorayaa muxuu noqonayaa goorta dibromoethane ayaa la dhahayaa magaceed markaa ama 1,2 sida hadda ayaan kuu sheegay 1,2 waa laga tegi karaa maadaama uu meesha laba kaarboon kaliya ay yaaleen waxaa dhihi karaa 1,2 dibromoethane waa dhihi karaa haddaa laakiin 1,2 ilaa wuxuu waa laba kaarboone waa haddii kan mid qabsada kan waa iska cadin kala qabsanaya marka uma baahna haddaa rabtid waa iskaga tegi karaa 1,2 oo waxaa dhihi karaa dibromoethane baa dhihi karaa marka halkaa maxaa ka dhacay reactionkaas waa addition waayo ethene ayaa waxaa lagu daray bromine waxaa soo baxay hal product haddii marka laba shay la isku daray ay hal product soo saaraan reactionkaas waa addition laakiin substitutionka maxay ku naqaanay laba shay markii la isku daro laba shay oo kala soo baxay waayo mid baa la bedelaya kii la bedelay iyo kii kale ayaa isqabsanaya iyagana product laba bay soo saarayaan waa saan sidaan kusoo aragnay substitutionkii laakiin additionka waxaa lagu yaqaanaa hal product just one product ayaa soo baxaya markaa reactionka markaa waxaa loo yaqaanaa mechanismkaas electrophilic addition ayaa la yihahdaa labada step maraya stepka koowaad oo slow step stepka labaadna waa fast step kan muxuu ku noqday bayn yidhi laba shay oo charge la isla falgelaya positive charge iyo negative charge so they attractive very fast sidaa daraaddeed waxaa samaysmaya moleculekan loo yaqaano dichloroethane ayaa soo baxaya good halkaasna wuxuu ku dhammaanaya markaa electrophilic additionkii videogan wuxuu ahaa video aan soo amaahanay oo youtube-ka kala soo baxnay kaasoo aan sin leenahay bal ardada inuu ka saacido inay fahmaan electrophilic addition waxaa laga wadaa haddii ilaahaydmu intaas waxaynu kusoo gabagabeyneynaa cashirkaas dalwadaan wanaagsan halkaas weli kasii weydina cashirada weli waa socdaan jabtarkan insha allah haddii ilaahaydmu waa iska soo gabagabeyneynaa waxbaa aynu walaagin weli kala bar bayn joognaa haddii ilaahaydmu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu